Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo xalay khudbad ka jeediyay xuska aasaaska 14aad ee Agoosto ee maamulkaasi ayaa soo hadal qaaday doorashadii aqalka sare ee ka dhacday magaalada Dhuusamareeb kadib markii si aad ah loo dhaliilay qaabka ay u dhacday doorashadaasi. Qoorqoor ayaa shaaca ka qaaday in doorashada dalka ka bilaabatay ay ku timid heshiis isla markaana ay tahay mid dadban oo sidii loogu talagalay ku socota sida uu hadalka u dhigay. Khudbadda oo sidoo kale ay kasoo qayb galeen ku-xigeenka madaxweynaha maamulka Galmudug iyo guddoomiyaha baarlamaanka isla maamulka Galmudug iyo marti sharaf kale ayaa waxa uu madaxweyne Qoorqoor ku bilaabay hadalkiisa sida tan. madaxweyne ku-xigeenka dowladda Galmudug, guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoonka baarlamaanka, madaxweynihii hore ee Galmudug, senatarada cusub ee la doortay, golaha wasiirada iyo baarlamaanka Galmudug, maamulka caasimadda, dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, dhallinyarada, gabdhaha, odayaasha, culimaadudiinka, ciidamada qalabka sida, bahda saxaafadda iyo fanaaniinta, inta munaasabadda ka soo qayb gashay, qof walba magaciisa iyo mansabkiisaan ku salaamay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. habeen wanaagsan. caaway reer Galmudug meel aad joogtaanba waxaan leenahay sanad guuro wacan, sanad guuradii 15aad ee aasaaska magaca ama aasaaska Galmudug ka soo wareegtay. hambaliyo meel walba la joogo isugu hambalyeelaynaa. xafladaha lagu xusayo munaasabadan caaway waxay ka socdaan dalka gudihiisa iyo dalka dibaddiisa. inta meel walba xaflad looga xafladaynayo munaasabadda qiimaha badan waxaan leenahay hambaliyo sanad guuro wanaagsan, sanad guuro wacan. waxaan rabaa dadkii intaas kadib dadkii aas-aaska magaca Galmudug ku soo shaqeeyey, soo sameeyey, inta nool inaan u mahad celinno. hore waa mahadsantihiin. intii dhibatayna ilaahay ha u naxariisto. oo runtii raba inaan si gaar ah u xuso madaxweynihii ugu horreeyey ee magaca Galmudug ku soo shaqeeyey, ambassador Kimiko, oo inaan Allah u naxariisto. runtii wuxuu ahaa rugcadaas Soomaaliyeed oo qaranka ka soo shaqeeyey muddo dheer. Galmudugna magacana samayntiisii iyo shaqadiisiiba qaybtii bilowgiisii lahaa. Galmudug, magaca Galmudug dad badan baa waxay yidhahdaan xilligaas xilligii la dhammaystiray ma ahayn. waa sax, laakiin Galmudug waa shaqaysay. si waxay ku shaqaysay weliba ay ka qayb qaadatay howlo muhiim ah oo qaranka loo soo qabtay. Galmudug waxaad ogtihiin inay samayntii dastuurka ku-meel gaarka ah ay qayb ka ahayd, saxiix iyo ay ku lahayd ka qaybgal, iyadoo dowlad goboleedyo aysan dalka ka jirin badan ay ka jireen dowlad goboleedyo fara ku tirisa ayay mid ka ahayd. waxay heshiiskaas qayb ka ahayd doorashadii lagu galay, dalku galay ama lagu heshiiyey 2012. waa sax, waa la soo hormartay, waa la soo hormariyey, waa la mideeyey, waa lagu midoobay kadib. laakiin magacu saasuu u soo shaqeeyey. maamul hay-ado dowladeed leh oo la aqoonsan yahay ayaana ku soo shaqeeyey. fayskii labaad wuxuu ahaa in la isugu yimid oo lagu midoobay oo maamuladii kale qaybo ka midihii ay ku midoobeen. Galmudugtii aqoonsiga buuxa heshana ay noqotay.
oo ay ahayd 2015 oo runtii aan u mahadcelinayna maamuladii dhammaan hawshaa qayb ka soo qaatay oo ay maamulo nabad iyo xasillooni iyo amni keenay ay ka mid ahaayeen ama ay dhammaantood wada ahaayeen waxaan rabaa inaan ka xuso maamulkii sidoo kale xman iyo xeeb oo haddaba axmed ducaale sheegay sidoo kale waxa dhammaystirkii ugu buuxay ama dhammaystirkii intii ka maqneed ku soo biirtay runtii uu dhacay ama ka maqnaa maamulkii ay hoggaaminayeen ahlu sunna waljamaaca oo ahaa maamul wax weyn soo qabtay dalka ka hor istaagay qaybo badan oo ka mid ah argagixisadu inay ku fidiyaan shartooda iyo dhibaatadooda runtiina u geystay argagixisada casharo laba ilaawaan ah waa ku ammaanayaa madaxweynihii hore axmed ducaale walaalkay inuu lahaa sababtii la isugu yimid oo ahlu sunna ay uga soo mid noqotay galmudug maamuladu waa badnaayeen dhammaan maamuladii reer galmudug u kala samaysnaa goonida dhammaantood waxay ku darsadeen ama la midoobeen galmudugtii 2015 dhammaan maamuladii iyo deegaanadii ay ka jireen waa ammaanaynaa marxaladihii ay soo martay galmudug sidaasay ahaayeen meel weynna waa soo gaartay runtii waxaan ognahay wixii ugu dambeeyey oo intaa la soo dhaafo runtii galmudug tallaabooyin waaweyn bay qaaday wax badan bay ku tallaabsatay waxay noqotay galmudug maantay cadowga argagixisada ah ee waddanka Soomaaliya oo dhan ama in badan oo ka mid ah dhibaateeyay inay galmudug maanta faysgaraynayso dalka ka hor taagan tahay qaybo badan oo ka mid ah ayadoo aanay la howlgalayn ciidamo amisom ah iyo ciidamo ajnabi ah waxaan rabaa in halkan ka ammaano ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee labada heer dowladeed ee geesiyaasha ah iyo shacabka reer galmudug oo gacmaha is haysta sidii ay u faysgareeyeen ula tacaaleen argagixisadana ay dhabarka uga jabiyeen sidoo iyaga iyo hoggaankooda taliyaashooda ciidamada oo rag dal qiimo badan oo madax ah ay runtii guntiga u xirteen inaysan argagixisadu galmudugna dhibaato u geysan ka hor istaagaan deegaano kale oo Soomaaliyeed oo dhibi lahaayeenna ka hor istaagaan galmudug waxay iskoos u soo shaqaysay waxaad ogtihiin maantay doorashada dalku galay oo senatarada qiimaha badan ee reer galmudug ku soo baxeen doorashadii shalay ay ka mid tahay inay ka soo qaateen galmudug door Soomaaliya ka tilmaaman oo iyadoo la kala maqan yahay oo muddo laga iska waraysan ama la iska arag arrimihii doorashooyinka ay reer galmudug u guntadeen shacab iyo dowlad inay gobol u dhigaan Soomaali isugu keenaan wax badanna ku xalismaan wixii dhimanaana runtii muddo loo wadaysi tartiiba inay u xalismaan sidoo kale waxay galmudug ku lahayd door weyn oo ogtihiin markii khilaafku gaaray meelo runtii dadka gelin kara cabsi ama u muujin kara khatar inay reer galmudug ayaguna ay doorkoodii mar walba ay la ahaayeen diyaarka la ahaayeen la soo baxeen maantana doorasho heshiis lagu yahay ay dalka dhacday oo dalka ka bilaabatay oo ay meel fiican maanta bilow fiican tahay oo baarlamaanka golaha aqalka sare uu hadda gabagabo ku sii dhow yahay runtii waxaan ku sheeganaynaa waxaan annagu sheeganaynaa ma ahan ee waxaan leenahay reer galmudug dadaal iyo sabar badan iyo isu jiidjiid badan bay geliyeen marihiina waa la gurtay waana bilowdeen waxaana u rajaynaynaa inaan sidaas ugu sii taagnaano mar walba maslaxada iyo wadajirka
iyo dalku inuu hore u socday dowladka Soomaaliya waxaad ogtiin halkan caawa kuma soo koobi karo arrimaha oo galmudug u qabsoomay balse hay-ado shaqaynaya dhammaystiran saddexda hay-adood ee dowladdu galmudug ka kooban tahay ay dhammaystiran yihiin baa caawa shaqaynaya waxaa la daadejiyey maamulka ilaa la gaarsiiyey heer ugu hooseeya ilaa tuulo loo dhisay maamul waxaa socda ama waxyaabo fara badan ka qabsoomeen arrimihii horumarinta oo runtii amnigii dhaqaalihii caafimaadkii waxbarashadii biyihii baahiyihii ugu waaweynaa ama ugu muhiimsanaa galmudug waxaad og tihiin meesha wax ka qabsoomay iyo halka ay soo gaareen iyo horumarka ka socda taasoo faahfaahinteeda la soo bandhigi doono haddii allah ugu diro ogolaado waxaad og tihiin galmudug cadow badan oo inta badan afka ku hubaysan bay leeda oo afka wax uga sheega waxaasaa saasa waxaasaa xagga waxaas iyaga dhexdooda hooga daadeen oo kuwa reer galmudug oo iyaga laftigoodu dee afka sheeggaas dhinacooda ka qaba hooga daadeen galmudug wax kastoo la sheegay iyo cid kastoo dhagar la baagareed waa ka soo gudubtay horeyna u socotaa iyadoo mida oo wada jira oo Soomaaliya xiri karta marka kuwa sixo waxa sheega oo horumarka iyo sharafta iyo meesha ay galmudug marayso si wax u fahamsan oo xumaani si ugu jirto waxaan leenahay ilaahay ha soo hanuuniyo dalkooda iyo dadkoodana ha tuso kuwa reer galmudug hayna taaka Soomaaliya ka mida waa isku mid meeshii horumar gaarta la jeclo wanaag kuna farax ha ka xumaani Soomaaliya meeshii haday taaka ka mid dib ka jiro dib baa ka wada jira sidaa darteed qof kasta waxaan leenahay dhammaanteen tallaabtii hore loo qaado iyo maamulkii wax u qabsoomaan iyo kii horumar gaara iyo hoggaankii wax fiican keena aan isu wada gacan siino aan isku wada taageerno Soomaalida wixii naga dhumay waxaa loo eersadaa wax badan qalbi xumaa ka mida si xun wax u sheegaa ka mida khayrka inay wadankooda khayrkiisa sheegaan inay ka dib dhacaan baa ka mida waddankanaga guud ahaan waxaan dardaarmaynaa inaan khayrkiisa wanaaggiisa horumarkiisa sheegno cid kasta ama qof kasta ama koox kasta oo xumaan ku howlanna si wada jira looga hor yimaado dadka qaar oo dhahaya doorashada saasa loo adeer dalkani wuxuu galay ama ku heshiiyey doorasho dadban markaan doorasho qof iyo codad gaarno allahna gaarsiiyo u socomaa daalada haddaadan adigu kursi ka helin ama midaad rabtay kursi ka soo helinna in xumaa dhacday macnaheedu waahana hore u soconno adeer qof kastoo Soomaaliya soo baxaa haddaad tahay musharax codka bari cod warso waa qof Soomaaliyeed waxaad tidhaahdaa dooro waxa loogu dooranaya soo bandhig laakiin midaan anigu jeclaa midaa kooxdayda ahaa kii iga maqan kii weli wax ma soo helin walaalaha dhammaantood ama intii waxaas gashay waxaan leenahay walaal ku dulqaado dalka doorashada uu ku heshiiyey si xun waxu sheegna ha noqonin meeshii lagu tartami jiray xumaanta waa laga soo gudbay wanaagga aad soo bandhigtaa lagu dooranaya ha lagu dooranaya saa xumaan u sheegto sabarkaaga dulqaadkaaga hoggaankaaga horusocodkaaga intaasaa la fiirinaya markaa fiirinaya dadka Soomaaliyeed xumaan kaa fiirimayaan marka waxaan leenahay intii soo baxday sanataradii golaha aqalka sare dhammaantood meel kasta ka soo baxeen waxaan leenahay hambaliyo mas-uuliyaddiinana gudta si hufan oo xulasho iyo
dalka inaad u qarmiirtaan leh u gud haddii ilaa yidhaahdo dadka soomaaliyeedna waxaan leenahay doorashadaas dadban iyadana ha la isugu wada sabro ha la isugu wada dulqaato waxaa noo ballan ah ilaahay idankii galmudug nabad ah galmudug horumarsan galmudug wada jirta galmudug xor ah guul iyo barwaaqo wabilaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu